ay soo qabanqaabiyeen guddiga ururka horumarinta Lababaar ee Lababaar Youth Development ayaa ka qabsoomay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Koramku ahaa munaasabad looga hadlayay sidii sare loogu qaadi lahaa caafimaadka, waxbarashada iyo dib u dhiska magaalada Lababaar ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha kala duwan ee ururka. waa kan gudoomiyaha Lababaar Youth Development Shaafic Xirsi Faarax oo ka hadlaya hadafka loo aasaasay ururkan iyo waxqabadkiisa. waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar oo ku saabsan ururkeena. ururkan maanta lama aasaasin, dabcan hore ayuu jiray muddo ilaa iyo sanad camal ayuu soo jiray. hadda tan ayagu waxay hirgashay in la isku keeno shir. marka koowaad waxaan rabaa inaan wax yar sharaxo ujeedada koowaad ee ururka loo aasaasay. sababta ururka loo aasaasay waxay ahayd kadib markii la arkay baahida loo qabo dhalinyarada reer Lababaar ee daafaha dacalada dunida ku kala fiirsan in la soo keeno ama la mideeyo. fikradaasna waxay ka soo dhexmaaxatay xubnaha reer Lababaar oo ayaga laftirkooda dhalinyarada kamid ah. taas markii la arkay waxay ka fursan weyday in la magacaabo guddi ka shaqeeya arrimaha isku xirka iyo mideynta dhalinyarada, taasoo waqti badan soo socotay, heerar badan soo martay, ugu dambeynna maanta soo gaartay meeshan hadda arkaysaan. caqabado badan ka soo gudubta dabcan. sababta koowaad oo ururka loo aasaasay waxay ahayd in dhalinyarada reer Lababaar meel walba ay joogaan, hadday gudihii joogaan Lababaar iyo hadday Soomaaliya joogaan iyo hadday dibadaha kala jiraanba hal meel isku keeno, taasoo wax badan looga faa'iideysan karo. qodobka labaad oo loo aasaasay ururka waxay ahayd inuu ururku wax qabto isla markaana wixii karaankiisa oo ku aadan dhalinyaranimo isla markaana deegaanka quseeya oo qabto. fallaahi alxamdu muddo badan ayaa arrintaas ay soo jiitamaysay. dad badan ay lahaayeen goorma la arki doonaa urur dhalinyaro oo reer Lababaar ay ku midaysan yihiin oo ay maskaxdooda ka dhex guuxaysay. waqti badan iyo juhdi badan oo lagu bixiyay ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay urur la yiraahdo Lababaar Youth Development oo horumarinta dhalinyarada reer Lababaar ah in la sameeyo. sidaa daraadeed maanta kulankoodii koowaad oo ururka oo si ka fool ah ayaa meeshan Muqdisho maanta ka qabsamay oo loo balansanay oo dabcan idinkuna ka soo shaqeeyeen. waa u baahantihiin oo ku baahantihiin sida aad soo xaadirteen iyo sida mataqaanaa waqtigiina qaaliga aad soo hurteen oo aad danta guud oo deegaanka idinkoo qof walba oo ka fakarayo meel dheer aad uga timaadeen. ilaahay baan ku mahadsan arrintaas noo hirgeliyay. waxa weeye wax badan oran maayo. ururka wuxuu u samaysan yahay waa urur horumarineed, urur siyaasadeed maahan, urur mataqaanaa ma ahan wax kale ka shaqeey doona. waa urur kulli bulshada iyo arrimaheeda iyo deegaanka inuu horumarinteeda iyo dhalinyarada isku xirkooda loogu talagalay. siyaasadda dad aan xil saarnay, dadka aan xil saarnaa waxaan ka rajaynaynaa inay ayaguna dhankooda ay guul ka gaaraan isla markaana tubta toosan iyo cadaaladda ay maraan. ururkanagu markaa waxaa loo aasaasay waa horumarinta iyo isku xirka dhalinyarada reer Lababaar meel walba ay jiraan. intaas ururku marka uu ka soo gudbay oo ururka ay hirgashay in la aasaaso, ururku wuxuu u soo gudbay inuu dhexdiisa iska aruuriyo qaaraankaas oo ilaa iyo xad asagna la soo waday. waxaa kaloo ururku inta uu jiray lagu guuleystay inaan haba yaraatee wax khilaafaada iyo wax tafaraaruqa ururka dhexdiisa aysan ka imaanin oo ujeedooyinkiisii loo aasaasay marnaba uusan ka bixin ee uu ku socday. taasna ilaaha mahad iskale, maskax iyo mataqaanaa iyo qorshe anagu aan leenahay maahan. ugu dambeyn ururku waxqabadkiisa waxaa kamid ah inuu maanta dhalinyarada u ballameeyay shir inta qaybta Muqdisho joogta. ururku marka la leeyahay qaybta Muqdisho joogta kaliya ma ahan, waa faracyo badan yahay, dibadda ayuu ku sugan yahay, Soomaaliya qaybadeeda kala duwan uu ku sugan yahay, deegaankii weynaay oo ururka dhanba dhalay oo Lababaar ah ayuu ku sugan yahay. laakiin la isku keeno oo la isku raajo juhdi badanna lagu bixiyay. ugu dambeyn ururku wuxuu ku guuleystay in haddana shirka fool ah la isku keeno, taasoo maanta noo hirgashay. fallaahi alxamdu hadeertaan u joognaa. waxaan rajaynaynaa in kolley hadda iyo wixii ka dambeeya dhalinyarada reer Lababaar ay soo jeesan doonaan waxqabad dhab ah oo deegaankoodii iyo mataqaanaa iyo dadkoodiiba ay wax u qabtaan haddii ilaahay yiraahdo. intaasaan doonaya inaan kusoo gabagabeeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gudoomiye ku-xigeenka ururka horumarinta Lababaar Cabdulnuur Cali ayaa isna ka hadlay aasaaska ururka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wajiyadiina aadka u quruxda badan. runtii ururkan intii uu soo jiray dadku badanaa waxay ka xiriiri jireen social media
qaasatan WhatsApp-ka ayaan ka wada xiriiri jirnay alxamdulillah ilaahay maanta wuxuu soo gaarsiiyay heer anagii macnaha soo hor fadhiisano isku nimaano inaan halkan isugu nimaanana waxay cadaynaysaa macnaha marqaatina ay ka tahay isjacaylka iyo muxubbada aan isku qabno inaan nahay dad isku deegaan oo isjecel oo israba ururkan wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha horumarka sidii walaalkay ururka iyo waxba soo qabtay waxa ka hadlay walaalka Shaafici wax badan oo aniga saas oo ku sii daraya hadda ma jiraan hadalladii walaalkay oo ka hadla marka aan wax yar ku sii dara oo sii taakiidina ururka kulli intaas soo jiray muhiimadda u dhisnaa waxa waaye horumarin deegaan waaye urur macnaha qabiil ku salaysan siyaasad ku salaysan ma ahan qof walba oo u furan yahay inuu ku soo dhawaado ama ganacsada ha ahaado ama qof kale si kale wax u qabana ha ahaado marka waxaan horumarka ku gaarnay iyo quruxdan waa dadaalkeena hadda inta noo dhimanna waxaan rajaynayaa inay intii hore aan ka sii fiicnaa doono wax walbana waxa lagu gaaraa kulli dadku inay ay sameystaan macnaha community ahaan marka intay ay midnimo inta sameystaan markay hadaf ay leeyihiin hadaf kasta waa la gaaraa oo maanta waxa alxamdulillah waxaan filaa inay tahay ururkii koobaad oo reer Lababaar ah oo shir qabsada oo dhalinyaro hal meel isku yimaaday shirkoodii meel inta ku qabsaday maantay ayagoo deegaankoodii iyo ayadu mustaqbalka deegaankoodii ka fakara inay shir inta qabsadaan meel oo isku yimaadaan waxaan aan filaynaa macnaha waxayba ka weyn oo kasii qurux badan in meeshan macnaha laga dheeha doono oo miro aad u qurux badan waayo waxa ii muuqda maanta wax walba aad iyo aad ii farxad geliyay waadna mahadsantiin hadalkan ku sii badanayo marka aad iyo aad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale madaxa dhaqaalaha Lababaar Youth Development Axmed Sharaf Qadax Ereg ayaa ka hadlay muhiimadda isku imaatinka xubnaha ururka qaybtiisa magaalada Muqdisho runtii inta walaalkay Cabdirasaaq yiri waa ila jeclaaday laakiin idinka waxaan ma dhaamo wax habeen kuma sareeyo laakiin waxaan ku faraxsanahay in shaqo socoto oo dhamaanteen aan u soo halganay intaas waxaan ku darayaa muhiimadda meeshan u nimid dhamaanteen waxaan nahay dad walaalo ah oo dantooda iyo deegaankooda ka fakaraya iyo mustaqbalkooda marka waxaan rabaa muhiimadda ay leedahay dhalinyarnimada ama jiilka cusub inaan ka faa'iideysto maadaama aan nahay mustaqbalkii dalka iyo maaragtay dadkii maanta wax u qaba lahaa muhiimadda isku kaan keenta waxay tahay in uu jiro deegaan iyo dad aan ku abtirsano naga dambeeya oo noo baahan xooggeena u baahan maskaxdeena u baahan maalkeena u baahan sidaas darteed marka waxa lama huraan noqotay inaan anagu aan isbarano qof kaligiisa wax ma qaban karo laba wax ma qaban karto laakiin urur markii uu jiro waxba isla qaban karaan way istaakulay karaan qofkii maantay xoogaa caajis ka muuqdo dhiirigelin la sii karaa sidaas darteed markii inaan booskii dhalinyarnimo ka soo baxno inteenaan deegaankii aan ka nimid ama aan ku abtirsano ama Lababaar markii la yiraahdo waxa ka jira duruufo aad u badan oo aan la mid ahayn deegaanada asagoo ku faca magaalooyin ku faca waxa jira caasimado noqday qofkii xamar yimaada ama wadan kala taga wadankii dib wax ugu macilinayn ama maskax ku macilin ama maal ku macilin ama wax kale ku macilin sidaas darteed marka waxaan rabnaa in aan ku bilowno oo aan noqono ururkii ugu horeeyay oo haddaan nahay injineer leenahay haddaan dhakhtar leenahay haddii aan leenahay waxyaalo kale deegaankii inta ku laabano aan ka hirgelino qof walba wuxuu yaqaano maanta inteenan waa looga baahan yahay qof walba familkiisii waalidkiisii walaalihiisa jooga maalin walba cabasha ka timaada qof looga sheekayna ma jiro baahida ka jirta deegaanka marka waxaan codsan lahaa LYD ahaan inaan xoojino maanta booska aan joogno oo qofkii qaaraan bixi kara hadda qofkii dhihi kara maanta waan baxayaa Lababaar aan u socdaa waxaan rabaa mashruuc noocaas inaan ka hirgeliyo 100% oo soo dhaweynaa waana ku taageerinaa waxaan awoodna naf iyo maal marka si aan ula tartano deegaanada kale oo nagu faca ama nagu hareereysan waxa laga maarmaan ah inaan helo dad noo istaaga anaku markii dhalinyaro ahaan la yiraahdo adduunka marka taariikhda dib ugu laabatid wadamada xoroobo aragtid waxa soo xoreeyay dhalinyaro wixii soo halgam waxa aan dhalinyaro Soomaaliya taariikhda markii dib loogu laabto waxa ugu horeeyay oo taariikhda xusta SWL dad dhalinyaro ahaayeen anaga waxa la rabaa markii deegaankeena dib ugu laabano inaan SWL oo kala noqono ma gaari karna laakiin inaan soo dhaweyno xogaa oo wax aan bilowno sidaas darteed waxaan boorinayaa muhiimaddu ay leedahay dhalinyarnimada in la adkeeyo oo maanta fursad aan haysanaa kuwa naga dambeeyo oo jiilka soo socda iyo kuwii naga hor inaan isku xirno oo booska maanta aan joogno aan uga faa'iideyno dalkeena iyo dadkeena muhiimadda kale waxay tahay waxa lagu magacaabay maaliyad markii la yiraahdo waa la dareemi karaa culayska ay leedahay
waa ammaano waxaan wax ku noqon karnaa dad la tartami karnaa markii aan qasnad leenahay oo maanta haddii lacag kuu taalo wax walbaa samaysan kartaa isbitaal samaysan kartaa waddaa furan kartaa iskoolaa furan kartaa wax walbaa samayn kartaa laakiin haddaad shilin haysan waxaad ku qasban tahay inaad facaa toogtid marka reer labaarna looma baran inuu fico toogoon waxaan ka codsanahay inaan nagu kallafin inaan ficin toogno oo 100% aan noqono dad isku dhan walba ka dhisan haddii wax noqoto waxbarasho haddii ay noqoto maaragtay maadiga ama diiniga labadaba waxaan rabaa mid kale oo baraarujina oo dhalinyartan kula dardaarmayna ku daro semberi deegaankiina waxa ka dhacay dhibaato 99% waxa geysa dad dhalinyaro nala mid ah hadday noqoto dib kale ama dil ama wax la mid ah odayaashu waxay ku inta badan ku jaha wareeraan dhibka ay geystaan dhalinyarta wili ma sadicin oday wax xaliyay laakiin waxa dhacday wiil wax xaliyay sayse marka arintaas u dhicin inaan wacyi gelin sameeyno oo deegaankii aan la xiriirno qof kasto dib geysan raba ma aan isleenahay dadka gacanta fudud ku jira in la hadlo la wacyi geliyo oo laga wacyi geliyo waxyaalaha jahilnimada oo dilka iyo qabyaaladda iyo waxyaalaha la midka oo keeni kara sababi kara in dhalinyarteena wacyi gelino annaguna aan wacyigeena kor u qaadno qofku markuu qof wacyi gelina waxa la rabaa in uu wacdisan yahay oo wax walba uu fahansan yahay dadkuna ay noqdaan dad la wacdiyay mid wax wacdiyay si aysan dhib badan odayaasha hadda dhulka way dhisi karaan magaalo waa la dhisi karaa isbitaal waa la furi karaa laakiin isbitaal maxaa la furaaba dhibaa taagan maalin kasta garaa lagu jiraa diya la bixinaa inta loo socdaa waxaasoo dhan markii si looga gudbo in dhalinyarta la wacdiyo oo la yiraahdo war ilaahay ka cabsado marka koowaad oo cabsida ilaahay nagu adoonsaday aan farno markaas kadibna wixii danaheena aan kala hadalno warka sii badin mahayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan kusoo dhaweynayaa xiriiriyaha cabdirasaaq anfac maxamed xirsi ayaa iyana ka sheekeynaysa daruufaha iyo horumar la'aanta ka jirta Lababaar Cabdisalaam waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo muuqdo wajiyadan quruxda badan hortooda waa dhalinyaro walaalaheena oo isku taagay isxilqaam si voluntary inay ugu shaqeeyaan dalkooda iyo dadkooda runtii aad ay ugu mahadsan yihiin waxaan si gaar ugu sii mahad celinaa dadka fikradan la imaaday oo reer Lababaar dal iyo dibadba meeshii joogaan inay isku xiraan go'aansaday dadkaas aad ugu mahad celinaa way mahadsan yihiin inta fikradooda qaadatay oo ku garab istaagtana way ku mahadsan yihiin intaas ka bacdi runtii maanta wax badan ma dhahayo intaan dhihi lahaa dadka igu horeeyaa dhahay laakiin waxaan ka warami rabaa Lababaar xaaladiisa qof kasto maanta halkan fadhiyo uu dareensan yahay wadankeena wuxuu u baahan yahay in aan isgarab istaagno wax walba oo wadankeena u qaban karnana u qabano waxaana dad oo yaryar oo dhalinyaro ah dal walbana dadkiisa dhisa qaasatan dhalinyarada Lababaar maanta dadka u baahan yahay waa anaga inaan wax u qabanana uga baahan yahay marka waxaan dhihi lahaa walaalaheena maanta Lababaar si weyn u duruufaysan yahay wuxuu u baahan yahay isbitaalo u baahan yahay goobo waxbarasho nooc walba iskuulaad dugsiyaal u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhismo wadanka in la qurxiyo u baahan yahay intaasna dadkii oo looga baahnaa inay qabtaan hawshaas waa anaga haddii aad jaamacad ka baxday dad dugsi sare ka baxday waa inaad dalkii ku laabataa waa inaad iskuul samaysaa waa inaad si voluntary dalkaaga u shaqeysaa intii uu soo kaabayo oo dal meel iska bixi kara oo noqonayo marka warkan kuun si dheereeyay waxaan dhihi lahaa aan isgarab istaagno sidii aan ku dhisalahayn Lababaarna u istaagno Lababaar meelo ka dambeeyo waxa la ii sheegay duur ahaayo oo ariga ku raaci jiray marka Lababaar joogay oo dhismo oo hadda magaalooyin ah dadka dhisana waxa la iigu sheegay inay yihiin dad anaga oo kala ah anaga marka inaan Lababaar caasimadba ku sii daba dhawaa inuu dib u dumo oo inta ka soo tagno oo baadi ar loo soo raaco oo noqdo runtii aad aga xumahay inkastoo aan waxba u qaban hadda waxa diyaar u ahay wixii aad bartay inaan dib ugu celiyo Lababaar waana mahadsantihiin waqtiga fiican oo ku soo horteen iyo meeshan imaanshaha ay maateen waxa rajeynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajeynaa maanta maalin ka qurux badan oo ka horumarsanahay oo dalkeena wax u qabanay in aan gaarno insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sidoo kale Sakariya Bashir Isxaaq ayaa isna sheegay inay muhiim tahay in Lababaar laga hirgeliyo waxbarasho bismillaahir rahmaanir rahiim awal assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa islaami qof walba magaciisa ayaan ku salaamay bacd salaam war wixii la dhigi karo waa la dhahay adoo qiimo leeyahay waxaan rabaa kaliya inaan xoojiyo intii halkan ka wada hadashay hadalkoodii maadaama aan hal meel ka soo wada jeedno hal deegaan ah waxaan u baahanahay maxay inaan iskaashano inaan isgarab istaagno in maxay wadankii
aan sidaan uga soo tagnay aanan uusan beelaha u noqon oo ahaado wadankii waxaan baranay iyo waxaan shaqaysanay inaan dib ugu celino xooggeena iyo hawadeena runtii lababar weli muusan isbedelin marka annaga maxaa noogala baahan yahay ka dhalinyaro ahaan intii noo horreeyay hadday wax sixi waayeen annaga maxaa noogala baahan yahay maadaama ilaahay uuna waafajiyey gruubka ugu horreeyey oo ka hadlo arrin lababar maadaama aan nahay waxaan u baahan nahay in maxay ahayto aan ficil u bedelno hadalkeena anigoo iskriya maanta diyaar waxaan u ahay inkastoo anigu dadka shaqaysta ma yihiin laakiin waxaan dadka maskaxdooda wax ku darsaday waxaan diyaar u ahay maskaxdayda wixii ilaahay oo geliyo karaamkayga inaan deegaankayga dib ugu celiyo oo wax ugu qabto lababar wuxuu u baahan yahay marka meel aan waxbarasho lahayn sideedu ma horumarto waxbarashadu waa hub keliya oo bini'aadamka lisaga celi karo marka maadaama caradii aysan lahayn waxbarasho dugsi hoose dhexe ma lahan marka meesha haddayna aqoon aysan lahayn oo wax micnaha maxayto meelo oo waxbarasho lagu barto haddaysan lahayn say ku horumartaa way adag tahay marka maadaama dhalinyaro badan oo meeshaan waxbaratay ay joogto waxaan u baahannahay cilmigeena inaan maxayto waddankeena dib ugu celino si uu horumaro intii shaqaystay oo ganacsi ku beertana ayagana sidoo kale waa loo baahan yahay waa awoodda labaad marka hadal badan ma aqaano laakiin waxaan rabaa hal xigmada ama hal mahmaa inaan kusoo gudbiyey soomaalida waxay dhahdaa midnimo waa ehel ayaheedu waa guul marka inaan midnimadeena aan xoojino annagoo dhalinyaro ammaanta intaan wax badan aan bedeli karnaa laakiin qof keliya wax ma qaban karo far keliya fool ma dhaqaa soomaalida dhahdaa marka intanadan aan iscuudsano aan isxoojino maxay ahayto maskaxdeena iyo muruqeena isku darno wax badan aan qaban karnaa dad badan oo naga maqan oo maskax iyo muruq nagala maqanna insha Allah way nagu soo biiri doonaan laakiin annagu aan ka dhabayno intaasaan kusoo gabagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah xubnaha ururka oo ka hadlay goobta ayaa bogaadiyay howlaha horumarineed ee ururka uu ka wado magaalada Lababar waa tan Bishaaro Xuseen oo ka mid ah xubnaha ururka oo fariin u dirtay ganacsiyada reer Lababar Allah subhanahu wa ta'ala noo suurta gali maanta intaano qof oo reer Lababar in halkan isugu nimaano maada koowaad Allah iska leh halkan isugu nimaano si guud iyo si gaar ah waxaan leenahay anagu ima mahad cali karnaa jasaakumullahu khayr ilaahay khayr hay dhankiina aan ka siiyo bacda salaam waxa halkan soo kaan keenay anaga dhamaanteen waa horumarka reer Lababar iyo sidii uu reer Lababar horumar ku gaari lahaayeen runtii anaga waxaan nahay dad oo dhalinyaro ah tilaabo kastana aan tilaan lama qaadi karo insha Allah waxaan rabaa horta inaan si guud iyo si gaar ah fariin ugu diro dadka reer Lababar oo ganacsatada ama waxaysto iyo kuwa aan waxaysan dhamaantood reer Lababar maanta anaga inoo baahan yihiin Lababar baan ku dhalanay asaga xuduntanooda ku aasan tahay marka meesha aan ku dhalna maanta inay daciifnimo ka jirto aqoon darro ka jirto basic life ki dhama ay reer Lababar maanta aysan haysan baahi waxbarasho ha ahaato mid caafimaad ha ahaato dhan kasta maanta reer Lababar way ku liitaan marka dadkii loo baahan yahay horumarkaas reer Lababar ka qayb qaadan lahaayeen waa anaga because maanta hadda Muqdisho banaadir gobolka Soomaaliya ugu caansan waaye baaxadiisa markii la fiiriyo maanta Lababar markaad joogtana Lababar ilaa saaxo Lababar ilaa iyo Kabagorad Lababar ilaa iyo meeshan maxay ahayd baabuur cadde Lababar ilaa iyo gurgurad kama badna isku war ahaantiisa waana gobol Soomaaliya gobolada ugu caansan oo kamid yahay annaga dhulkaas haysano oo 5 gobol u dhigano maanta inaan degmo qaado weyno maxaan u kalifay 5 gobol dhigma haysana insha Allah one day waan gaari doonaa 10 sano soo socda ama 20 sano soo socda reer Lababar waxay noqon doonaa wadamada dalxiiska loo soo Paris iyo waxaan waana rajaynaynaa inay saas noqoto hadii anaga ay naga go'an tahay wax walba waad sameey kartaa hadii aad aaminsan tahay wax kasta waad sameey kartaa hadii aad aaminsan tahay marka marra warka inaan ku sida walaal reer Lababar meel kasta joogaan si guud iyo si gaar ah waxaan leeyahay maanta Lababar anagu noo baahan yahay waxaan rabnaa inaan wax u qabano dhalinyaradiisii aanay salaamu alaykum aan leeyahay kulan dabo kan ka xiisa badan iyo horumar badan idin rajaynaa iyo isku soo noqod wanaagsan iyo Sheekh Cabdullaahi oo maalmo ka hor ka yimid Lababar ayaa ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan tahay waxaana hadaladiisii kamid ahaay waxa way Lababar inay wax u qabtaan dalkoodii iyo deegaankoodii inay wax u qabtaan aad iyo aad aan faraxsanahay kulay aqbaar badan waan ka geey doonaa insha Allah hadii Ilaahay idmo wuxuu cirnaba badii lama qodna dadka dalkii ka soo tagteen iyo dadkii ka soo tagteen
sidii aa waddanka uga soo tagteen wax gaara oo u siyaada ma ay jiraan intii wax u baratay ama waxa weeye dadka iyo deegaanka u maqneed waa intiina waxaan leeyahay mar koowaad sida aad maaragtay u abaabusheen ama aad dalkiina iyo deegaankiina iyo dadkiina inaad wax ugu qabataan aad isku abaabusheen waxaan leeyahay ka daalnina saa dadkiina iyo deegaankiina u horumari lahayd marka hore waxa weeye ilaahay aan ku galab galo taa haddaan ka soo gudbo inaan waxaan rabaa wax yar waddankii anigu hadda shalama daraadaan ka imid warbixin yar aan rabaa marka inaan ka siiyo wuxuu dalku iyo deegaanku iyo dadku uu ku sugan yahay waxaa jira hadda wadamo maaragtay annaga deris nala ah oo jaar nala ah oo waxa weeye noo dhow waxaa jira xagga waxa weeye waxbarashada ama caafimaadka markii la yiraahdo annaga hadda qaasahaad marka reer laabaar nahay wax waxbarashada ma lihin wax isbitaal ma lihin wax caafimaad ma lihin waxa weeye dal walbana dadka wax u bartay ayaa meel gaarsiiyay ama wax u qabta horta intiinaan dadka iyo deegaanka waxayna wax u qabtaan raaw waa intiinaan waxaa jira hadda markaan sii dhex galo deegaamada noo dhow ee deriska nala ah annaga waxaa jirta hadda baarmugo oo kale qorraf oo kale curgudban oo kale waxaa laga yaabaa 300 oo waxaa weeye waxbarata inay iskuulka subaxii u xaadirto kana soo xaadirto annagana hal qof oo waxaa weeye waxbarta ma lihin hal qof oo macnaha waxaa weeye magaciisa sixi karana ma lihin dadkaas yaa wax u qabta waxaa wax u qabta dadka sidii noo kale waxaa weeye ama dal ha joogeen ama dawlad ha jireen ayaa wax u qabta ama iskuullada waxaa weeye u dhisa ama dadku wax u baran lahaa u keen ugu dambeyntii Nimco Cali Cabdi ayaa ku booriday in ururka Loobar Youth Development ay si laba tibaaraan hawlaha ay ka wadaan deegaanka wiimaadsiin ayaan leenahay gudigeena sharafta leedahay u mahadsantihiin marka waxaan leeyahay dhamaan wiimaadsiin ka soo qaybgalayaasha ee gudiga waxaan ku faraxsanahay maanta inaan hor imaado wajiyadan quruxda badan walaalahay LWD oo ka wada socdo degmadeena Loobar in waxaan gudagal rabnaa dhamaanteena sidaan magaaladeena wax ugu qaban lahayn ama degmadeena aan horumari lahayn ama u dhiirigeli aan u dhisi lahayn oo maanta aan sidii hore looga hadlayba dhiirigelinta maanta waxaan rajaynayaa inay nagu filnaato asxaabta iyo gudigana waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Xafsa Khaliif Xisi Xafsayar Loobar Media magaalada Muqdisho